الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وصل أمان والسلام يا dadweynaha karnaadada nagala socda iyo qoysatooska ay noo dhageysanayaan Soomaalidu waxay ku maamaadaan nin aan ku furiyaan ku rarin Kenya waxay ka dhaxashay waxaan la soo koobi karin waxaana ku dhacday niman baa waxay geliyeen dagaal ayna diyaar u ahayn Kenya waxay ahayd wadan ku qanacsan inay haysato qaybta Mombasa iyo inta iska gumaysato dawladdu ma gaarsiisnayn inay Soomaaliya soo weerarto ama sida Ethiopia ay qayb qaadato ama ay wada maamusho ma gaarsiisnayn dawladdu laakiin niman baa ku guuray cid kasta oo iska jira waydo lagu guurana waxay dhaxashay waxay ma Kenya dhaxashay Kenya maanta waxay dhaxashay waxa ugu dambeeyay qaraxyada maanta waxa ka dhacaya ururka haysta iyo ugu dambeeyay maalmaha waxa haysta Kenya ina la socotay mooyaane waxa ku dhacay iskuuladii ma maamusho faray ka baxeen 250 kun oo macallin baa shaqadii ka tagay caafimaadkii farahu ka baxay oo isaga istaweeya bangiyadii faraha ka baxeen oo waxay ku dhowdahay inuu qofku isku tashado oo bangiyadu faraha ka baxeen waxa bad kala batay marka dagaalka ay ku jirtay oo dagaal ayna u tashana ayna qorsheysana oo la geliyay niman aan u naxayn baa geliyay dagaalkan khatarta badan ee Mareykanka ku baabay ee hore Ruushka ku baabay ee hore 1990 dawladda Soomaaliya ugu guureen ayaa si fudud loo soo geliyay niman aan ka naxayn baa soo geliyay Yuhuudana ko ka ahayd Kenya maanta waxa weeyaan mana bixi karto mana joogi karto mana sii wadi karto xaqiiqada sida way marka niman Ilaahay subhanahu noogu sheegay subhanahu wa ta'ala ka xun faayada tawxiidka iyo nuurka ayaa wax isku dayeen inay ummadan baabiyaan si ay moogtay meel u gaaraan marka Kenya mariyaan Kenya kama soo kabanayso waxa gaaray sida umarroona waxyaabaha la yaabo ila xidmadiisa kamid ah dadka islaamka waxay gaaladu ku jirciyeen oran jireen akhaf dareeray oo dadka maadaratay maangaabka iyo dadka masaakiinta diinta waxba ka aqooniyo loo aadninkii la oran jiray wada Abdullah erga oo soo saaray barigi shariifka la dooraya waxa kamid ahayd akhaf dareeray dadka shariicada wax ku maamul doona shariifka halkan diin baa lagu xukumaya ninkaas aad oran jiray ninka ridada ka dhinta badnaaye dadka islaamka ka soo jeeray Soomaalida waa akhaf dareerin hal qaato akhaf dareerin ma tahay haysata Kenya laba daran doona maanta Kenya haysata inay isdiibto shariicada qaadato iyo inay baabado sida gaalada ugu maleeyeen dagartaas ay ku baabado ay ku sii jirto wax kale maanta meesha yaala ma jiro waxa la geliyay waxayna ka bixi kareen waxaan ognahay dadku ma wada ku dagaalka siya barra kale markuu maanta dagaalka adgaayo nin kasta sarjaali wuxuu tolanaya jiwaan la agta ku rito waxa uu leeyahay lacageen waa la duulayay waxa uu yiraahdaa bixin weeyay isaga ciidanka laftigiisa qalabayo waxa keenay waa u fiirso wadankan wadan iska masaakiin weeyaan niman ku qanacsan wajaalidooda iska hayad niman ku qanacsan Mombasa ku joogan bay hayad waxa lagu wuri kismaayo taga annaga idin geynayna Yuhuudan dhageysanay maalmaha kamida si abdo cadaysan inay Kenya iyagu dagaal gelinayaan ay caawinayaan muqabbaraadka maamulayaan dagaal gelinayaan inay u ganaanayeen in geeska Afrika shariica islaamka soo baxdo maanta maxaa meesha yaala Kenya waxa u soo baxday inay tashato oo ay ku tashato nimaan ku rarin ku furayaan ku rarin wax kale oo yaala ma jirto anista walaaliga muuqata waagad awal xabsa in si marka loo eego in Kenya waxa ka dhacaya falal amaan dara ah oo waxyeeleynaya dhaqaalaheeda dadkuna kuma dhiira karaan in wadanka isku biimeeyaan tusaale ahaan in caawa waxa dhacay waxay yimaadeen xilli Kenya ay u dabaaldegayso waqtiga xornimada ay qaadatay oo ciidamada aad u fara badan wadooyinka lagu daadiyay aynu ku faaneysay in ammaanka ay sugi karto awood ma u leedahay Kenya inay xaqiijiso guud ahaan wadankeeda iyo dhulka Soomaaliya ay ka hayso ammaanka walibana in dadka ay ku dhiirada halka inay soo galaan awood ma u leedahay maxayna tan muujinaysaa awood uma leh Kenya waxa weeyaan Kenya waxay sameyn karaysaa waxa ay inay dibadda ka joogto dibaddiina way ka joog weyday dagaal baa la soo geliyay niman waa dagaal lagu rayn bay soo gashay qofkuna hadduu hafoomo biyo ku hafoomo dan uu socdo ma garto Kenya waxa weyn dhaqaalana ma bahaystaan hadda kadib fareed waxba kuma jiraan bangiyada fareedba ka sii baxayaan waxbarashada way burburtay wax u yaal ma jiraba waa wax weyn way haftan biyo lagu hafiyay wax weyn waxa gashay ummadii islaamkii ee Kenya dhex joogtay way laayeen oo dadka ay gumaadeen oo culimada ay ku laayeen Mombasa dadka siday u laynayaan dadku waxay ku laynayaan diintooda
كرين وحين كبحي كرين لا ضدكي واحد waxay sameeyeen wax suurtagalna waxay sameeyeen waxa jirbeed bilaabay dad ilaahay abuuray oo ilaahay wadan dajiyay oo ilaahay guriga dajiyay isku dayay jirida oo jiraan haddaad shirqool samaysana sidii ilaahay noo sheegay subhanahu wa ta'ala wa makaru makran wallahu khayru makirin dad bay shirqoolkii ay dhigeen buu ilaahay ku rogay subhanahu wa ta'ala dagaalka Soomaaliya kii ilaa intay sii wadi kartaa horta dagaalku kii wadama dagaalku waa xarb caalamiya وصحاب دجال كبلامي تاريخ دارا بيلنا كلنا أفكار بكبلامين الصومالي أنا هو يكسر دحي وكل بين ما كان عمين دجال كيلي مو وضع يوالك يتري والله هكذا المدح جيل قاضابه وتجي فوكيلي هو دجال هو حيصير ذكريسا وقبضنا وغصنه فوقا وحين تبنجير ولي بنجير جارد دمانات باجلتا وبنجير ولي ضدك قاركو تجيان بنجير مركز العقل جوايو شخص كاستعمل كيس ساسي وكتريا وحي إلهي وكترجله. وهجاك تصالحان إن حلقان الصومالية عندما كجوجا استبدل أي القصة مياه وقت كستا أو كينيا يدو كدوليس إن مردلا عيدا كهيستا. قوة الصومالية كجرا حد مراحل كردون أي جليان أو شان مجاهدين ستة ساوح أوبرتنا ما سنة ينقلكي صحيح عيدا ككينيا الصومالي كود الجوجا أيوة سومري سنوان سيدا كان عضي جارسة يدوب لي وضع سكحرت أو لوها علي أو ربعين عالم كإليهين وحيقوا أهد مهم صحيح كينيا الصومالية عيدا كود كجوجا أوسي مرسيسو سيدا إليهين كاننا محاكا ذكر الحاكا ذكر وضع كينيا تحال بأين حين عندك شيء دجال الوضع دجال أكثرية وضع مرين كودو كرواي ودجال كود فوق الأطار إذا أيام دجال أي كتابة تدك أو دم بالجمال تقف كفوا إسلام وحسود يوفق من كرائم وقلقه بس ما ممكن يجيء وأول ما إذا يأتي صنع واحد لا دجال في الدين إلهي من لا دجال في إلهي ما لا دجال في ضربون إلهي كل هنيين يجيل كودي يلف كودي يوقت كودي يمال كودي أشكر عيال مثلا كينيا دجال كان موضوع يسلمت سنة حتى إلى جالس أروم ملايين وطبعا وده كانوا حجب الفيلي ولو كمان ده كان كده واجد وعكس هذه السين كروين دجال في سيوري كريم أي الصومالي كسي جري كريم أي هاي إذا مرودي إن دقالة اللصيو دقالة لقوم بلا من اللصيو بكذي كسمة يا إحدى بحشي اللي قدروا فيه شام مجاهدين جورجيين بحشي عين السوقلين ما في جناح قصد أي كياعين لكن موريان أمانك اسمها موريان عين نقطة لكلا بوضعي دقالة اللي قلت الشيء ماشي وكبحي وإيش كان قضيان ما قالين كينيا وحي نودي كريم ده شيء ما أنت أنا حدا لا هذي وحمق لا يا رياضة كشنيين ما أنت تدويين إن في جرتار ما أنت تدويين لكن ما جرى يا نفسي وسيدي من وسيفتي يبرو بري أي أمك صاحي كبر بالكافو كذا وحنا إنكي إثيوبيا اللي حاول يلا إثيوبيا وطمع بغن خطوا مثلاً باراتو وطن كم باراتو يري عاوني ما أنت سوى ولا جزء بوري لما أصلا بوعن وحاول برنامج لما صار سوى صدقوا برسالة سوى مقطع كي إن الصومالي مركز سوق ليس إن والعكس هرر وحياها دتك كذا وشكت وحكم إذاها إن أمان لهلا ودن كذا دتك نبتجري يكون ولادان كويدا يكون إيمانا الصومالي إنه الصوق شيء سيدا سعيدتك وشكتي هذانا حل جات سيدا هاد وقت هذا الجوجا وكاف يكرديري سيدا موقته تقال كميرك دون أيو كوباهي جوابيه جناح سيدا الإسكوما أمين كردتك ودوين كإيمانات كيكون كل ما كلام يدي وعلى بقية إن لو وضعته شعب ككينيا أو يجو رنتي إن وحد الصعونية لبعض الأغوبة خضر لأيسا قوان مقالة كران ومقليل كران ديود بحيو عيدا كودو مدال بكران ودك الصومالي لغا صار هو تكيو فرمقاتي تحكى له فرميشي ومجربة وهو يعني لبعض الأغوبة الناشة تعالى واحد من مكان مكينياتي واحد مودا بيتك العين المعمولة يصوت صوت الضبع يصور النورايان بيد غبارين الدور الجناوة ورسيدة طولة لين المساكين ودركي يطلعها وجود ليان أجر جريان قريه وجود عيان تنجده روح على شدين ما حديد ضد ميرليه برامج يفتولده بسنا يوحكوا بيننا الساعين وضدك إسلام كده ماشى دقاي كجوا جيليان ويدولده ذي مكتعين استبقى وطيق كمطلب بحضر أبوه وليهين وطبعا أنا أركي أبوه ولا الموقع ضدك المساكين تعال أمان أمرهم الله وصينيا ما عنده إذا واحد يسني يسوى نكى دمارة الوزارة خريجين كها ويتوب يسني له نوسو جرمده marka hore ma aan Itoobiya in culays laga dejin loogu tala galay in culays ka waqtiga markii gudaha loo soo tuuray waxa harto isweydiin baa aan waxa aan la yaabay ka tahay waqti markii dambe wuxuu wala naga saarnaaday
شامتين ونجي صار نادين أمني وخل خلي ما أنت هنا بأرض دوتين وخل خلي وحنوبا عنا هاي إلا النعاوي أفكي سوق كذا وغير كوتي الدستورات ورثوا تارك وهجاك وضع كينه ويدوبان تايم كعبات كشوا فصلوا وهجاك إن وحير إن عضير أيام دقيسة دوناقات ككجر حلبان إلياس برشيل أو كمده إن حلبان هذا كينيا وكوا إن الصومالي ده halka kamid ah waxa uu leeyahay in Kenya Soomaaliya duulaanka u soo qaaday waa dhanka nabadda in lagu helo wuxuu leeyahay jubbooyinka oo nabad ah waxay dan ugu jirtaa Kenya Muqdishona uu fogeynaya wuxuu leeyahay naga fogta أنا وحاطن إيه جبلان أو نبض مقصود ويقف لكن جبلان أو نبض إيه يعني صوت عالي ما كان نبض نقصه أنا نبض بنزوي وحنا الربع شل بقول أو كل أو كهوتية إن نسكعي أو إكسارا إن نكعي ملاكي معدن بوالي جيب يا جماعة كسمايا أحمدو يكون نبض إن يكون قدام دونه أنا علاش إيجابه أنا وحاربت علاش إنه أنا صارنا هذا صدق يلا تكلم سنة ولا سنة كله أنا عامسنا وهذاك إن أبو الحفص إن حلبان إلياس برا الشيل أو حلبان البرلمان كينيا كميدا وحوليه هاي إن مامل كجوبا أولك وكتريو أو كينيا إستي إن نبض أولكاس ونقضو waxay ku xiran tahay nabad Kenya ay hesho isagoo dadka Soomaaliyeed in wadankaasi qaxootiga ku ah u aaneynaya joogitaankooda dhibaato badan inay keentay oo hadii wadankaasi laga soo saaro oo dhulka in jubbooyinka iyo meelo kala duwan la geeyo amni in la heli karo sidaas ayuu muujinaya hadalkiisa ninkaas uu kula muuqda dadka wax jira ma aha sababtoo ah wuxuu abdu Soomaali yahay wadankan Soomaalida inay la qabsaday ayuu dareenayaa in la haysto yahay oo la gumeysanayo oo arkiiniyati una helayeen Soomaaliya إن la gumeysanayo waxna loo yeedinayo waxna loo dhiibayo Kenya ay ka yihiin waxaan jirin 12 bay ku leeyihiin waa labada boqol ee baarlamaanka Kenya 12 ku leeyihiin waa dad liita weey marka ninkan wuxuu hadlay oo وكل وأنت اللي قابل لنا يعني كبارين واحد نقول إن الشقاء على قولي مصيبة واحد ضاق يسي ومكان كده عنه كبارين واحد نقولي إن بولا واحد نقولي بولا فأنا ممكن شيء إن كارث إنسان تعرف ما كانوا هلا مش عارف يروقاتوا هلا يا ومقطع مالي هذا ما أنت جمع يروقع الموقع مجرته وين قاعد سوماليو خير هبليو أمة إسلام على الدبر جريا وليجودي يهنتدودي يمالكودي ينفتودي يقبلهودي يالحرمات كل شودي ودوا ترتريا ما كان هذا كان واحد هذا اللي جدي يسوي ما ولا وحنا نفكر ذات كرامودي يوشودي وإذا كان لرادو مال بان دكتو إلى علينا بحياة جالو سنيجي صار على الموقع خسيت واحد على الموقع مالك أجل خير الله نعمة على رواعين دفاع على الدكتور أد بعض ما استنت أبو الحفص هرري وإذا عدل الفقان ورمي